أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدين وايدا بقولني وحنا برتنا كجرني runtii wacyigelintii aynu ka wadnay COVID-19 saamaynta uu nagu yeeshay bulshadeena waliba Soomaaliyeed dhinaca bulshada dhinaca waxbarashada dhinaca tababarada dhinaca dhaqaalaha dhinaca caafimaadka dhinaca walba hadaba caawa ilaa ay suugaantii oo xalay uu nala joogay abwaan aadan musahibe runtii caawa waxa inoo martiya xildhibaan Raaqiya Ismaaciil oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Islington London kana tirsan xisbiga conservative-ka xisbiga xaakimka sidoo kale isna waxa inala jooga xildhibaan Saciid Ibraahim oo ka tirsan golaha deegaanka Cardiff isla markaana ka tirsan xisbiga Labour-ka marka waxaan doonaynaa waliba aanu xoogga saarno aanu ka hadalno arrimaha dhalinyarada dhalinyaradeenii runtii saameyn badan buu ku yeeshay marka la eego dhinacii weliba waxaanu eegi doonaa dhinacii faldambiyada waayo marka la eego macluumaadka xogta ee la baahiyo dhalinyaradeennu xoog bay u gashaa faldambiyada weliba xabsiyadana xoog bay u galaan marka bal aynanu caawa ka waraysano iyaga waxyaabaha taagan maanta COVID-19 oo runtii ina kala xiray saameyn kale ayuu soo saaray sidii wax looga qaban lahaa marka bal horta intaan soo dhaweyn sidii caadadeennu ahayd maanta runtii daytadu waxay sheegaysaa hoos buu dhacay maalin walba uu sii dhacayaa 21% ayuu hoos u dhacay maanta marka loo eego 7 cisho hore dadka ogaaday inuu ku dhacayo positive noqday maanta waa 12,000 qof halka dhimashadu ay ka tahay 533 qof runtii marka loo eego maalmo dhaweyd sidii aynu ahayn way aad iyo aad hoos u dhacay waan ilaahay mahadii laakiin bal waxaan isku dayi doonaa in aynu wax ka ogaano arrimihii dhalinyarada marka hore waxaan aad u soo dhaweynayaa xildhibaan mar labaad xildhibaan Raaqiya iyo xildhibaan Saciid haddii aan ku bilaabo Raaqiya marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda ay dhalinyaradeennu ku sugan tahay gaar ahaan xaafadda aad ka mas'uul tahay ee lagaa soo doorto ee Islington iyo bal caqabadaha hortaagan dhalinyarada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا العبد آدي بعض محادثة وانا سود وهاي تدوينها الصوماليات بابا في الصومالي وهذا الميل واللي تشوفان هو السلام يا سلام الإسلام كان يقول السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوي لا بقى السبحة runtii COVID-19 waxaan ka hadlaynaa ambaba coronavirus saamooyin ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed amba Islington degan ambaba Soomaalida UK goodan degan runtii saamo weyn buu ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo xaaladda intan ka warhaya ee weli degmadeeda Islington degan dhibaatooyinka u badani waxa weeyaan horta dhalinyaradu waa kala dhowr wax bayna ku eegnaa dhalinyaradu qaar waa kuwa carruurta yaryara oo kuwaas caqabado gaar ah arkaan laakiin malaaca waxaan u maleynaynaa kuwan ka hadlaynaa inay dhalinyaradii teenagerka amba youthka kuwaasoo dhibaato badan runtii haysta oo runtii ta u weyni waxa weeyaan structure of family life iyo education iyo work intaasi waa all interrupted mid ka sii weynina way jirtaa runtii guryo runtii waxaan ku jirnaa kooban haddaan weliba reer London weliba reer Islington nahay waayo Islington 33 degmo ee Islington ambaba 32 degmo ee Islington marka cityga laga reebo waa degmada u yar balaadhkeedu iyo degaankeeduba taasina waxay keenaysaa guryo yaraan iyo overcrowded imika inta wait list noogu jirtaa waa over several thousand familiyada Soomaaliyeed baan runtii u badan oo 4 carruura iyo baan haysanaa ka u yari waa 4 carruura amba 3 falaad yar baa lagu jiraa falaadka yar waa overcrowded for a family of 6 dhibaatadaasa imanaysa marka dabeetana ilmo waliba wuxuu u baahay meel gaar ah
talabaad dhibaatada kale taalan ilmo wariba meel gaara isagoo u baahan ba meel gaara oo weliba private inuu wax ku dhigta ay tahay because education is online 24/7 online bay carruurtii ku jirtaa hooyadii waxay moodaysaa inuu ilmihii laga yaabaaba inuu online ku jiro for maybe an hour 45 minutes ambaba 2 hours ciyaalkii waxay uga gudbayaan waxyaabo kale online-kii baa loo soo gelayaa iyaga laftooda mid ay furan yihiin ama mid saaxiibiin baa soo gelayaan halkaasaan bal website-kaasaan galay waxaasaa igala kulmay waxaasoo taasina dariiqada yar Soomaali waxa ku mahmada dariiqada weyn bay kugu dartaa in the most bad or way because dariiqada weyn waxa ugu daraysaa waxyaabo badan oo inaga moosnaa oonin haddayna ku waalid nahay aanan ka warhaynin iyo sida internet security loo sameeyo oo carruurta laga monitor gareeyo unfortunately kuma naqaano carruurtii waxay gelaysaa inay online qaarkood ay transaction ku sameyn karaan kuna sameeyaan ambaba ay ku iibiyaan maandooriyaasha ambaba ay baananka ku soo jabsadaan oo waxaasoo dhan trainingkaasoo dhan online buu ka baxaa dhibaatooyinkaasoo miidhan baa la kulmaya carruurtii waxa kaloo la kulmaya kuwa gelina frustration baa gurigii kaga dhacaya iyo space-ka yar dibadday u baxayaan qaar kale iyaguna dariiqii u taagan oo wax kale dariiqo kale oo habaabinaya marka dhibaatadu runtii COVID-19 malaha boqolkiiba sidaan u malaynayo 80 amba ka badan aad bay u saamaysay dhallinyaradeena kamana warqabno waalidkuna wuxuu moodayaaba markuu ilmuhu qaato smartphone-kiisa amba iPad-kiisa amba laptop-kiisu xagga sare jooga ambaba koona yar joogo ilmahaasi wax buu baranayaa taasna waxaan runtii kala mid nahay dadweynaha kaloo dhan waayo dad badan oo iyaguna si adig minority-go inakoo kalaa moodaya ilmahani inuu ku jiro safe space education-kiisii ambaba social network-kiisii which is not right waxaan xildhibaano kalaan la sheekaystaa markaan waraysto waxaad arkaysaa internet security buu family ba leeyahay website waloy galaan ilmahaas waalidka qaar baa la socda inaku capacity-gaana melihin knowledge-gaana melihin firfircoonidaana runtii melihin marka dhibaatooyinkaasoo miidhan baa yaala carruurteenii waxay keenaysaa marka iminka lockdownka laga baxo oo iskuuladii lagu noqdo maaha carruurteena oo qure carruur badan oo adig minority dhibaato badan bay tacliinta kala kulmaysaa because waa well behind markeedii horeba inequality race economic poverty you name it inakoo waxaasoo dhan haysanay tana dushay nagaga timid carruuro badan baa iyaguna faamiliyadoodii qaar ka dhinteen qaar maxaa la yidhaahaa dhaawac ka iga yihiin COVID marka waxa weeyaan waa minefield waa huge problems and community-geenuna ayna aware ahayn community-yadii u adeegayay leaderska ka ahaa voluntary sector-kuna capacity-giina ma haystaan wada jirkii ay ku wada shaqaynayeen ma haystaan marka dhibaatadu way badan tahay aad u mahadsantahay raaqiya waa runta caqabadaha aad sheegtona runtii waa wax jira haddii xaggii qoyska tahay haddii xaggii dowladda ay tahay haddii xaggii ay bulshada tahay iyo dhalinyarada laftigooda waxaan doonayaa usoo noqon doonaa inaynu faahfaahino sida weliba maadaama iminka waxbarashadii la isbedeshay oo online ay ku wada jiraan aanad iminkana carabka ku dhufatay inay waalidiintii aanay kaba warqabin laakiin carruurtii waxyaala kale lagu jiidan karo waxaan doonayaa baltaa inaan faahfaahino bal aan soo dhaweeyo horta xildhibaan Saciid Ibraahim oo isna ka tirsan xisbiga Labourka golaha deegaanka Cardiffna ka tirsan Saciid intaa ay raaqii sheegtay kulle waxaan qabaa inay idin baa la qabtaan inka badan kamid maxaad kaga duwantihiin maxaa idin dheer maxay si raaqii ka tagtay oo isku daraysaa weli markay noqoto waxa idin gaarka ah ee magaaladiina challenges haysta بسم الله الرحمن الرحيم عبدي واد كما تنتهي بروجرام كان عاد نوسع اسمتي عوا ولا لو انت اي رقيه شيكتي انت سبب واحد ظروفها عذر كان كاني
intii uu bilaabmay waayo wax badan oo qarsoonaa oo aan hoos loo eegi jirin ayaa dibadda u soo baxay oo ay ka mid tahay oo caqibadaha ugu waaweyn ee maanta haysta dadka Soomaaliyeed ama dadka ajaanibka ah ee cudurkani uu dibadda u soo saaray waxa ka mid ah xagga guryaha markii cudurku bilaabmay ee qof walba la yiri guriga hal la fadhiisto dadkeena in badan baa falaadi ku jirta in badan baan gaadhan lahayn in badan baa uu dhulku ku yar yahay markaas siyaabo badan dadkii hadday falaada degan yihiin haddii qof uu cudurkii qaado lif baa la wada sheer garaynayaa albaabaa la wada taabanaya meel 500 qof baa meel kasoo wada gelaya marka in badan waxaynu ku noqonnay siyaabo badan waddo cudurkii uu yaallo in aynu la kulanno dad ahaan marka anagu xaafadaydoo kale xaafadda aniga laga soo doortay waa xaafad Soomaalidu aad ugu badan tahay dadka Yementu ay ku badan yihiin waa xaafad qadiimiya waa xaafad 200 ama 300 sano ugu dambeysay raadka Soomaalida iyo Yementu iyo African community-yada kale West African-ka iyo West Indian-kuba ay raadkoodu yaaleen 300 sano marka as a council ahaan waxyaabahaanu aad uga doodnay ee aanu awoodda saarnay waxa weeyaan sidii wax looga bedeli lahaa waxyaabahan cudurku soo saaray waayo dee inagu waynu ognahay cudurku wuu yimi wuunala joogayaa marka sidii dadkan looga saari lahaa dhibka haysta weliba dadka ku jira falaadyada oo markay noqoto haddii guryo la dhiso guryo aan falaad ahayn loo dhiso oo markaana sidaa loo dardargeliyo waxyaabaha markaa aanu imika ku guda jirna waxa weeyaan oo aan dadka falaadada ku jira aanay priority u helin weliba hadday carruur leeyihiin in markiiba guriga laga bedelo waayo qofkii waxaa loola xisaabtamaya qofku inuu guri haysto marka qof ama homeless ku jira ama meel kale ku jira ayaa laga yaabaa gurigii soo baxa in la siiyo marka waxyaabaha cudurkani uu sidaa aan horeba aan u sheegay in loo dhegal nugulaado carruuraha yaryar haysta ee falaadada ku jira si loo badbaadiyo tacliintooda iyo waxyaabaha markay weynaadaan ku iman kara sidaa ay ruqiibaha deerta ka dhawaajisay markii cudurkani yimi markiiba tacliintii waxay isu bedeshay internetka ilmihii internetka markuu galo laga yaabay aabbiyo hooyaynu wada nahay inaynaan foonka yaraynu eegna mooyaane inaynaan 2 saacadood isku xiga aynaan laptop soo qaadin ama computer aanaynu ku jirin ilmo yaroo lagu yidhi 9 soo gal 3 dhamee waynu iska garanaynaa wixii carruur dee caalamkii baa lasoo hordhigay marka sidii loo ogaan lahaa ilmahani wuxuu ku jiro iyo hawlihii loola socon lahaa waxay u baahan tahay dad ahaan aynu ka feejignaano oo wixii qof wax ku garanayo qofkii wixii la isu sheego oo aan laga biqin wax isu sheega waayo waxaan bulsho ahaan waynu dhibaatadaynu ku timaado waynu yara qarsanaa ilaa ay dibadda u soo baxdo marka hooyooyinka iyo aabooyinka waxaan ku odhan lahaa haddii aad ilmaha aad carruurtaada ama adigu aad wax ku dhaantid jaarkaaga u sheeg oo waxaad tidhahdaa bal website-ka iyo waxaa iska ilaaliya ilmaha oo dee wixii qofku ku dhaamo ha u sheego sida kale ilmo walba iskuulka wuxuu siiyey laptop gurigii reerku markuu 2 qol haysto 3 carruur ama 4 carruur ay joogaan qof waliba wuxuu u baahan yahay inuu internetka meel ka qabsado meel yaroo aamusan oo qabow oo uu wax ku baran karo marka halkaana hawl baa ka iman karaysa oo tacliintii ilmaha iyo dee hoos u eegii tacliinta ayaa lafteeda hoos u dhacaysa taas marka laga gudbo online-kan ilmahani uu ku jiro yuu kula kulmaya yaa la kulmaya yaa odhanaya magaca guriga baad degan tahay aabaha card numberkiisa ii soo qaad jeebkiisa ku jira national insurance numberkiisa ii soo qaad wax badan waayo carruurtu way kala dhegal nugul yihiin oo ilmana hooyadii buu ku odhanaya hooyoy qof baa halkan igu soo golay waxa ay weydiiyey ilmana laga yaabo waa iska miskiino intuu wixii soo qaado reerkiiba account-kii wixiiba uu online ka dhiibaya taasina waa waxyaabaha maadaama imika shaqooyinkii ay aad u dhimeen kolba meel baa loo wareegaa
inta fraud ee iminka ka socda online dee waa inaynu waa la wada og yahay iminka saad u joogtid baa telefoonka ku soo dhacaya masaa lagu odhanayaa waxaa lagugu leeyahay lacag baa lagugu leeyahay soo noqon doonaa Siciidow raallow aan kaa dhex galo dhibaatooyinka internetka weliba online ka lagu soo ciyaalka laga yimi marka waxaan doonayaa inaan bal yara eegno caqabadaha aad sheegteen oo markii horeba yaalay iminka sida aad sheegteen wax walba waxay noqotay ilaa waxbarashadii waxaa laga dhiganayaa internetkii kula jiraan ciyaalkii innagiina mar walba isha kuma hayno waxaa laga yaabaa weliba badankeena aan idhaahdo 90% ama inaynaan waqtiba u haynin ama inaynaan fahansanaynba runtii markaad eegto la eego faldambidiyada dadka gala ee xabsiyada kusii badinaya 10 sanadood ee ugu dambeeyay xoog bay u batay weliba dadka laga tirada badan yahay weliba dadka waxaa ugu badan markaad eegto daytada dadka Afrikaanka iyo muslimiinta dadka Afrikaanka iyo muslimiinta waa Soomaali u badan yihiin sida la wada ogyahay runtii weliba waxyaalaha ay xoog u galaan waa ka ganacsiga daroogada maadaama haddaba iminka wixiiba online noqdeen iyadoo sidoo kale waxaynu ognahay in ay maalmahan intii COVID-19 uu soo baxay weliba lockdownka aynu galnay in waxaan loo yaqaano dabeecadaha dadka lidka ku ah anti-social behavior oo hoos u dhacay waxaa laga yaabaa midiyaha knife crime-kii isna inuu hoos u dhacay waayo lockdown baa lagu jiraa gurigii baa la jooga laakiin khatarta kale ee ka soo baxday dhinacii internetka booliisku waxyaalaha ay markaad eegto newska ku jira runtii waxa la yidhahdo dark web oo internetkana aanad google-ka ka sii garayn karin ama search enginesku aanay isticmaalinba laakiin access waxaa isticmaalaa qolooyinkan ku jira dambiyada ama drugs iibiya delivery baa lagu sameeyaa waxbaa lagu kala iibsadaa marka waxaa laga yaabaa ilmihii yaraa isagoo gurigii fadhiya in ama la shaqaaleysiiyo uu halkaa wax ka wado raaqiya khatar intee leeg weliba islington waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay meelaha ay midyuhu knife crime faldambiyada midyuhu way xoog badnaayeen waxyaalaha keena gacanka hadalka violence-kana waxa weeyaan runtii marka la eego waxaa wadata dragan ayaa wata daroogadan la iibinayo ayaa gacanka hadalka wata sida ay cadaymuhu sheegayaan iyo cilmi baaristooda haddaba khatartan cusub ee iminka in internetkii wax walba lagu sameeyo weliba meelo aanay monitor garayn karin oo aanay xitaa booliiskii isha ku hayn karin iska daawaalintay khatar intee leeg bay inagu tahay weliba sidee baynu uga bixi karnaa sidee baa wacyigelin looga samayn karaa maxaa xal raaqiya maqlaysaa niyadaad ku jirtaa mid baan ku jiray horta arrintaa aad sheegteen labadiinuba ambaba xagga fraudka ambaba iibiskan dark webka lagu iibinayo maandooriyayaasha waxay weliba dark webku waxay leedahay khatar weyn oo khatar aynin inaku hadday nahay ambaba muslimiin ambaba Soomaali aynin inaku keligeen ka bixi karaynin ee inayn awareness iyo education horta weyn laga sameeyo oo weliba qolooyinka safeguarding-ka ah such as maxaa la yidhaha NSPCC children charities-ka NSPCC lala xidhiidho booliiska qaar lala xidhiidho dad ciidaa ka fara badan runtii waa inay dadkeena train gareeyaan si ay carruurtu vigilant ugu ahaadaan websaadyadaay gelayaan because taasaa dhibaato ah qacanka hadalska iyo midi horta Islington horta waaba notorious baaba anaaba ku odhanayaba iminka waxaa dhintay ilaa sanadu ay bilaabantay 17 dhalinyaro at least 6 Islington bay ka 4 or 5 Islington bay ka dhinteen dee markaad London oo dhan amba UK oo dhan u fiirsato dee waa too much weliba waa one of the smallest boroughs in the UK waxa taasna keenaya kuna tusaysa magnitude ku leeyahay daragan la kala iibsanaya magnitude dadka weliba waxay carruurtu iibinaysaa wax yaroo bilaa micnaa hadda runta loo noqdo waxani waxa weeyaan business isdaba taxan oo waa whole trade itself
marka horta marka u horeysa drug trade-ka in la dabar jaro taasida lagu dabar jarayaana runtii dee waxa weeyaan xagga dowladda iyo booliiska marka taasi way horta inugu adagtahay haddayna anigu baan isleeyahay Somali community-ga ama Muslim community-ga laakiin mid baa jiri kartaa dhalinyarada horta imika caruurtan imika ilaa adigu malaa 10 jirada ilaa 15 jirada waalidkood waa waalido dhalinyaro iyaguba laftooda oo sida waaweyn at least xitaa hadday beri dhexdaas Soomaaliya ka yimaadeen wadankii waxay iyaga laftoodu awareness bay qabaan oo education bay haystaan qaarkood kuwa aan haysanina imika waxaan ku jirnaa caalamkan casriga ee amba social media amba WhatsApp amba email amba god knows baa lagu jiraa ta aan maanta garanayn midda kala garanayso oo tilmaamayso aniga ba arkay sida dumarku iskugu tilmaamaan marka runtii waa inay community-gu dib iskugu noqotaa talabaad review inagu haddayn Soomaali nahay community leaders iyo community groups waa in review dib loogu sameeyaa waxa haysta oo ay lockdown u yihiin dad certain age ah waa in taana la bedelaa dhalinyaro 30 something la keenaa kuwaas dabeetana dhalinyaradeenan dariiqa khaladka u bayraysa markay arkaan walaalkoodii ka weynaayo dee go'aan jaraya oo leader community ka ah waxa laga yaabaa taa lafteedu inay ka bedesho dariiqa leexanay marayaan waxa jirta iyaduna malcaamadihii oo iyaguna deemika waxba runtii lagama barto dee waa dunidu way xiran tahay taa lafteeda in iyadana structure-keedii la bedelo marka runtii COVID-19 amba coronavirus waxyaabo badan oo runtii dee qaarkayeen iska arkayay laakiin ka daboolnaa dadka ayaa soo baxay marka horta faa'iidadeedu waxa weeyaan inayn horta bal community-geenu dib review iyo revalue iyo service providerska oon iyaga laftooda la gorgortano oon idhaahno waayo Soomaalida waxa iga dhaadhacsan waanan arkay over 20 years baan ku jiray voluntary sector-ka xaqeena ma helno dhibaatada caruurteena u leexanaysa waxa weeyaan xaqeena ma helno imika community-da qaarkood Londontan waxay haystaan youth center ay haystaan waxay haystaan maxaa la yidhaha leisure centers by themselves none of it inaku melihin xaqna wayn u leenahay marka inakaaba runtii aan isleeyahay inakaa isdayacno caruurtiina dayacnay baan anigu isleeyahay khaladna haygu ahaato runtii waad saxsan tahay haddii aynaan dhaliisheenna aqbalin tii u malayn maayo inaynu meel gaarayno waxaynu u baahannahay runtii in sidan si ka ballaaran isku horeyso intaa aad sheegtay waa run in arrimaha qaar wax laga bedelo ururadii bulshadu in dhalinyaradii laga soo qayb geliyo inay dad gaara u xidhnaadaan runtii maaha ta kale aan ku daray waxa weeyaan runtii Bristol oo kale way jiraan urura shaqeeya dhalinyarada shaqeeya laakiin waxaan la yidhahdo youth work waa profession qof Soomaaliya oo professionka u tababaran inkastoo imika ay habka Bristol City Council oo kale ay kontragyada u bixisay wax ka bedeshay oo qolooyin waaweyn la siiyo laakiin haddana ma u haysanaa youth work inuu profession yahay xirfad mihnad lagu shaqaysto inay tahay Saciid raaqi runtii arrimo waxay taabatay inna wadamqay oynu ku ognahay khibradna u leenahay haddii xaggii ururada bulshada noqoto xaggii waalidiinta noqoto haddii xaggii community waxaana tiri waa inaynu warno inaynu xisaabnaa maxaad ku dari lahayd sidee baynu xisaabtaa looga qayb qaadan karaa maadaama waxa aynu ka hadlaynaa dhallinyaradiina walaal cabdi ruqiyo waa ku saxsan tahay Cardiff ahaan anigu anoo yar baan youth work bilaabay oo dhalinyaro ah anigoo weyna waan kaga baxay oo as a counselor u gudbay horta mid inaga community ahaan Soomaali markaynu ka hadlayno horta aynu ogaano wax inagu kaligeen inoo gaara oo waayo meel dee neelaguma ururino meel ma wada deganin bulsho kaleynu la degannahay jaar baynu leenahay xaafado kaleynu kala degannahay in marka hore la ogaado waalidka iyo jaarka iyo caruuraha ay iskuulada caruuruhu la dhigtaan sidii dhibka loo wada arki lahaa
waayo annaga marka laga hadlayo youth service oo kale youth service kuna horta waxna waxa weeyaan charity ku shaqeeya lacag la siiyo oo 4 sano ama 5 sano funding lacagtu ka dhamaato oo haddana dib u soo bilaaba oo waa wax uun ku darasho ah oo aan ahayn statutory sidii iskuulkii oo kale annagu waxaanu leenahay statutory youth service waxa ay dawladda hoose ay lacag siiso xaafadaydoo kale laga yaaba ka ku yaala inuu yahay ka walashkoo dhanba ugu wanaagsan questionka markaa la isweydiinaya waxa weeyaan ma wanaagsan yahay oo shaqadii loogu talagalay ma qabtaa questionka markaa dadku ay isweydiin laakiin laga yaaba 80% dadkeenu inaanay aqoonba in meeshaas ay carruurta loogu talagalay haddii ilmuhu tagana laga yaaba inaanay weligoodba weydiin ilma qofka ka shaqeeya ilmahani siduu yahay marka in xisaabtankii la barto oo aanay khasab uun ahaanin inaan sugo qof Soomaaliyeed waayo xisaabtanka waddan baynu joognaa xisaabtanka lagu ogol yahay cidda doonta inaad la xisaabtantid waayo aniga markii lay doortay waxyaabahan doonayay inaan xaafadayda aan kusoo kordhiyo waxay ahayd in marka hore laydhkii ka maqnaa iyo focuskii ka maqnaa ee aan xaafadayda lagu eegi jirin in aan dawladda hoose aan idhaahdo waxan iyo waxan baa naga maqan marka waxay arkeen qof hadal la weydiinaya oo leh codkii xaafadda inaad kor u qaado codkii xaafadda inaan kor u qaado hoos ahaanna dadkii aan ula shiro oo aan idhaahdo haddaydan codkiina kor u qaadin anigana codkayga cidi maqli mayso marka markiiba dhalinyaro badan oo xaafadda degan ayaa markiiba ila shaqeeyey oo hooyooyin leh oo aabayaal leh ayaa marka shaqada waa la kala leeyahay ilmihii markuu arko hooyadii oo guriga markay joogto ka hadlaysa ama aabihii oo ka hadlaya halkaa waxbaa lagu iibiyaa ha tegin ilmihii wuu yara fakerayaa marka maxay noqotay inaan markiiba aan geeyo ra'yi ah waxaan doonaya in study lagu sameeyo anigoo xaafadayda ka duulaya in study lagu sameeyo dhibaatooyinka drugska iyo antisocial behaviorka haysta Cardiff oo kale marka chair baan ka noqday marka waxaa lagu magacaabay wax la yiraahdo task and finish waxa weeyaan wax la bilaabo la dhameeyo marka waxaa ka soo qayb galay xisbiyadoo kala isku wada dhan oo kala jaada oo ah conservative-ka laborka liberal democrat-ka applied camriga marka wadad iyagu isu soo xilqaamay oo doonaya arrintan marka 8 bilood markii waxa dhacday kolba waxaan u yeedhaynay community-ga voluntary sector-ka loo yeedhayay hay'adaha gaarka mar waxa loo yeedhayay youth service-ki oo statutory-gi ah oo iyaga la question garaynayay mar waxaan u yeedhaysay waxa weeyaan inaad fahantaan dhibaatada inta leegtaa iyo sida wax loo qabto inaanu fahanno iyaguna inay wax ka fahamsan yihiin si loo soo saaro report xaqa oo saxa oo cid walba la siiyey janiskii ay ku lahaayeen waxyaabaha iga farxiyey waxay ahayd maalin aanu isoo invite garaynay 9 qof oo aniga constituency-gayga xaafadaha igu dhadhow oo aan hore u iman jirin oo masaajidka ka mid ah hooyooyin Soomaaliya ka mid ah marka waxyaabahan invitationka loo soo waxa weeyaan in ay wax ku yeeshaan waxyaabaha iyaga dib ku keeni kara ama carruuraha ku keeni kara si ay hadhowto reportka ay u qaataan oo ay yiraahdaan 2 sano horteed baa dhibkaana la tusay maxaa wax looga qaban waayay marka walaalow markan soo koobo arrimahani waxay u baahan yihiin in xisaabtan hoose la keeno laakiin waxna kuma yimaadaan in suulka iyo fartaynta la isku talaada haddaan doonayaa aad baad mahadsantahay Siciid waa dhab waxaan loo dhigin deegtada lama helo inaynu ka qayb qaadano runtii cashuur baynu bixinaa inaynu dadka wax la qaybsano dadka xaafadda inay la degan wax la qaybsano dadka magaalada la degan wax waalidiintiina ay indhaha kala qaadaan runtii markii dhaweyd raaqi waxay tiri inagu daraaga socda bay tiri wax yar baynu weydiin maanta waxaan miiska ku jiray waxa la qabtay oo booliisku ay qabteen alaab kasoo degtay markab oo cocaine weliba nooca cocaine drugka oo lagu qiyaasay 148 milyan waxaana loo keenay sidii muus oo kale inay tahay wixii muuska lagu soo dhex garay runtii waxa iibinaya waa carruurteeni iyo kuwa lamida dadka cabaana
maalin xaasa maqaal ku yaalay baan jeclay telegraph mise magaazinada weyn mid kamid ah waxa uu ka hadlayay dadka isticmaalaa in ay yihiin dadkan dabaqada dhexe middle class laakiin dadka u dhinta ee isku dila waxa weeyaan waa dabaqada waa carruurteen weliba waa madowgii baa ugu badan waana structural problemskii dhibaatadii xagga qaab dhismeedka dowladda iyo bulshada ee ay raaqiyo tilmaantay raaqiya waxaad kaloo soo qaaday malcaamadihii sidee baynu maadaama ay maaha wax qarsoon waynu kala soconnaa bulsho kastoo magaalada degan marka arrimaha bulshada laga shaqeynayo runtii aad baa loo kalsoodaa dhinacii malcaamada ayaa timo malcaamadahaynu ilaahay hadaayo qur-aanka ciyaalka inoo baraan waa dhab laakiin sidee baynu looga qayb gelin karaa oo loogu xiri karaa qolooyinkan arrimaha bulshada ka shaqeeya waalidiintii in kobcinta garaadka ilmaha dhinacii qur-aanka mooyaane dhinacii kale waxyaalahan u baahnaayeen oo weliba arrimahan looga digi kari lahaa bismillahi rahmaani rahiim horta waa runtaayo dee walaalo malcaamadaha horta lagamaba maarmayo intan halkanay bay ku soo gaadhay marka malcaamaduhu iyagu waa baahi loo dee mujtamaceenu u baahan yahay iyo mujtamac walo muslimiba laakiin waxa jira waqtigii iyo waayihii baa isyar bedelay marka hadduu waqtigii iyo waayihii isbedelayna waa ina kolba xal kale la keenaayo wax la bedelaa waayo haddaan wax la bedelin waayo generationkan iyo dee technologygan iyo noloshan waa nolol socota marka hadday meelun taagnaana dee wax dhibaataa imanaysaa marka u horeysa malcaamadaha runtii carruurteenna qur-aanka wayn barnaa wayn ku dadaalnaa laakiin intee carruurteenna tasfiirka barata amaba hal aayadoo bartaan micnaheeda fahansan taasi waa mid horta talabaad waxa weeyaan carruurtii malcaamadii bayn geynaynaa haddayn waalidnahay wayn kaga tegaynaa taasina dhibaatadeedii leedahay waa inay malcaamadihii noqdaan family center markii family center malcaamaduhu noqdaan bayn inakii ay carruurtiina wax fahmaysaa waxa imanaya social maxaa la yidhaahaa hay-adihii kale samafalka ahaa hay-adaha samafalkiina hadday child safety guarding tahay hadday tahay qolooyinkan dee boliiskee carruurta awareness ka siinaysa drugska iyo dhibaatooyinku isaga laftiisu inagu hayo taa lafteedu inay seshana kasoo qayb galaan oo ay arkaan inuu the whole family entity ay meesha wada joogto waalidkii wax la baro dhalinyaradii laga baro iminka waxaad afka ku dhufatay iminka intaasoo milyan miyuu ahaabaa shipment kasoo degayay carruurteenna pound ayaa kasoo degay carruurteenna horta iyaga waxa kasoo gelaya waxa weeyaan 3 xal mid faraguudkii kasoo galaa oo jeel ku dambeeya mid ku dhinta iyo mid maandooriska derbiga la jiifa kuwa ka taajiraya waa taajiriinta waaweyn marka waa inaan community inclusively la shaqeynaa inaan keligeen ahaanin aad baad umahadsan tahay raaqi waxaynu u baahnay inaynu dadka la shaqeyno oo dadka ku xidhnaano bulshadana aynu noolnahayna runtii aynu ka mid ahaano iminka dee 30 sannadood waqti dheer marka laga reebo qolooyinkiis iimaanadaha iyagu ilaa 80 sannadood in ka badan 100 sannadood joogay intan ugu dambeysay qaxootiga aynu kusoo galnay waa 30 sannadood ugu dambeeyeen waana arrin badan xildhibaan Siciid arrimaha aynu soo sheegnay sidee baynu xal ugu heli karnaa xal weliba laga wada shaqeyn karo oo waalidkii qoyskii bulshadii malcaamadii iyo bulshadii weyneedii aynu la noolaynba isku xiri karta runtii taasoo weliba aynu culays ka saarayno xagga faldambiyeedyada sidii loo yareyn lahaa loogana hortegi lahaa walaalow siyaabo fudud laakiin ku imanaya shaqo badan ayaa looga bixi karaa qaar horaan usoo sheegay horta in aad xisaabtanku qofku in dadku ay isbisaamaan oo yidhahdaan maxaa aniga ii dana xaafadda baan deganahay ilmo 2 jiraan haystaa waa in ka 2 jirka haysta iyo ka 18 jirka haysta ay isku si u fakaraan oo ka 2 jirka uu yiraahdo bariba ilmahaygu 18 jir buu noqon oo laga wada hadlo halka dhibku ka yaalo dhibkaana sida looga baxayaa waxa weeyaan
magaalo waliba waxay leedahay dawlad hoose dawladda hoose waxay leedahay education social services environmentka youth serviceka waxay u kala jajabtaa 5 6 ama 7 meelood oo meel walba ay u baahan tahay inaad la xisaabtantid marka xisaabtankii muxuu ku imanayaa wuxuu ku imanayaa xisaabtankii marka hore in aad adigu indhahaaga furto aad eegtid halka dhibku ka imanayo waayo marka xaafadaydoo kale markan ka soo qaado dhul baa jiray aan hooyooyinkii hooyooyinku markay subaxdii geynayaan iskuulka carruurta markay marayaan wada quraarad iyo ciyaal tuban iyo dhib badan lagu arki jiray marka waxay noqotay in community safety-ga dawladda hoose lagu yidhaahdo maxaad wax uga qaban weyde marka bulshadiina dhinacna waxaan ku leeyahay waa inaad hadashaan waa inaad telefoonka dawladda hoose u dirtaan waa inaad tustaan in halkan dhib idinka haysto taas marka la keeno dawladdii hoose marka waxay ku jawaabaysaa inay meeshii kamarad kusoo xidho kamaradaasoo qura lagaga tegi maayo waad dabagelaysaa dhibkii kalaad sheegaysaa halkaasaad dhib naga haysataa halkanba wax naga haystaan marka waxa weeyaan waa inaad mar kasta aad istidhaahdaa uun environmentka waxa laga bedelo haddii aan laga bedelin environmentka wax ilmaha sida doonaha loo soo koriyo saa doontid u ilaali maalintu gurigaaga ka soo baxo 7 halkan u joogo helaya adoo 7 falowgeeda qabta sidii aad meesha uga eryi lahayd in yaroo kaftana bari dhexdaasaan soo galay meel ay dhalinyaro Soomaaliyeed ku sheekaysanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed laga yaabee marka la isku qiyaaso inta sano ay joogeen adigu ilaa 20 sano ilaa 25 sano marka la isku daro waddanka way joogeen waana rag dhowr iyo 40 jir ah marka waxaa laga hadlayaa waddamadii aynu ka nimi baa laga hadlayaa marka intan yara dhegeysta baan ku imaada real ii warramo misaan ku hebelow waxaad ii sheegtaa bal cidda dooratid xaafadaada cid waa nin dhalinyaro ah carruur buu leeyahay dee anigu waxaan u haystaa nin wax fahamsan waxa markaa xaafadiisa la kulmaya wuxuu gu yidhi maba garanayaba misaan ku yidhi okay inankii kalaan weydiiyey isna wuxuu igu yidhi garan maayo kii afraad baan weydiiyey wuxuu igu yidhi halkii uu kuwii degaanka ii sheegi lahaa buu ii sheegay kuwii baarlamanka London noo fadhiyey marka bulsho ahaan waxa inaga maqan in bodigeennii unbaa jooga halkan dad badan oo waynu lugaynaynaa laakiin maskaxdii iyo wadnihii iyo wixii halkan ina qabadsiin lahaa ee carruurteenna ka ilaalin lahaa dhibka ayaa inaga maqan taasina waxay u baahan tahay aaminaan marka hore in la aamino in ilmihii halka ku korayo markaana mid kalena maalin anagoo sheeko ku jirnaan ayaan qolooyinku yidhi war maalin qura numberka 101 waa numberka ka horeeya 999 waxa weeyaan marka ama dee mindi lagugu dhufanayo ama qofkii dee u baahan yahay ambulance 101 waxa weeyaan wixii haddaad wax ku aragtid gurigaaga agtiisa 2 qof oo ismaagaya ama qof si dee khaldan dhar gaara u xidhan oo aad ka shakid waa shakiga misaan ku yidhi waana dad halkan ku dhashay kuwaas maaha qaar ka yimi meel kale misaan ku yidhi waan ogahay dhibkaynu ka wada hadlayno oo dhalinyaraynu ka hadlayna laakiin weligiin 101 ma la hadasheen saasaa laysu eegay may oo marka yaa dhibkan kuu og inagu aynimka ka sheekaysanayno bal yaa kuu og halkeebaad yaad ku halaynaysaa ilmahaagu hadduu ku arki lahaa adigoo maalin qof gurigaaga hormarayo aanad wax fahmayn aad report garayn karaa laga yaabo ilmihii inuu yidhaahdo wallahi aabbaa hadhow ku sheegaya ama aabbaa ku maagaya haddii aad waxaa samaysid marka waxaynu u baahannahay educational awareness fara badan xagga sidii waxaan aynu u fahmi lahayn waayo ilmuhu waxaa ku baran karaa haddii khashin gurigaaga la hor dhigo aanad adigu lahayn waa inaad dawladda hoose la hadashaa maaha inaad halkaa u daysid ilmihii laga yaaba inuu kaa barto maasantay Siciid waa waxyaalaha sigto runta waxaad moodaa waxaanu arkaynaa qof si qaldan u socda ama dabeecado dadka lid ku ah ku dhaqmaya anti social behaviorkii
lagama yaabo inuu yidhahdo waa mid sakhraansan baynu nahnaa waa iska sii dhaafka ama ciyaal yarar baa halkan ka qaylinayaan mas-uuliyadda inaga saaran bulshada waxaa laga yaabaa inaynu inagu qoyskeena ilaalin laakiin mas-uuliyadda bulshada inaga saaran oo xitaa haddii dhinaca diinta laga eego dee innagana mas-uuliyad bayna saaran qoyska inaga saaran tahay bulshada inaga saaran tahay waxaad moodaa inaynu aad u dayacnay casharo badanna in laga barto u baahan yahay runtii raaqiya waxaan doonayaa waktigiina uu cararayaa runtii cilmi baaris badan ayaa sheegta in aynu mararka qaarkood waxaa jira waxyaala tirsan oo uu ka mid yahay oona doonaya inaynu ku dheeraano laakiin habeen dhawadaan ka hadalnay caafimaadka maskaxda mentalka waxaa kaloo jira alcohol iyo drug iyo daroogadii khamrigii iyo daroogadii weliba dhalinyaradeen oo aan loo kala soocayn rag iyo hablo aanad moodo cilmi baarista inay sii badanayso ay sheegayso inay sii badanayso waxa kale oo inoogu soo biiray runtii markaad eegto qodobinkeena muddada joogay waagii hore runtii lama gabadoo xanada halka aynu ka badbaadnay waxa weeyaan dumarkeenu balwadu way ku yaray waxaa laga yaabaa kunkii qof mid in laga helo wixii balwadii noo ahaan jiray markiina waddanka nimidna wuxuu ahaa qaar dumarkuna barfiyada way fadhiisantay laakiin iminka bahal shiishada la yidhahda raacyahay magaalo kasta inagu soo farabadatay oo rag iyo dumarna aad looga cabanayo dhallinyaradina waxaa jirtaba wax caadiya arrimaha inoo qarsoon shiishada lama baqariya iminka laakiin hadday noqoto khamriga iyo daroogada weliba inama iyo hablaba ee yaryar maxaa laga qaban karaa sideeba maxaa xalaas possible solutionism weliba sidii adiis baa tilmaanteen inagoo aan aad moodo inaynaan fahamsanayn habka waddanku u shaqeeyo hadday noqoto dowladdii hoose iyo dowladdii dhexe marka arrinta si aanay jiilasha dambe loogu gudbin ka hortag noocee maxaa xal raaqi maxaad soo jeedin lahayd bismillahi raxmaan raxiim walaalo inta aanan taagelin waxaan mawduucyo aad u fiican buu runtii counselor saciid ibraahim taabtay marka aan in yar gadaal ugu yar noqdo mawduucyada uu ka hadlay locally dadka amba laga soo doorto ambaba communitiyada intaad waa xaqiiq runtii 100% dadkeenu ma yaqaanaan waxa kale oo jirta area walba horta de I'm sure xaggaana waa la mido UK-gu waa one formula waxaa jira neighborhood watch waxaa jira tenant resident association meetings fiidkii la tago waxyaabo badan baa jiro oo runtii inayn dee lagaga hadlo ambaba buildingka ambaba haddaad house ku jirto house waa association kaasun inaad ka qayb gasho oo shirarkaa tagto oo waxaad ogaanaysaa booliiskii baa jooga dowladdii hoosaa joogta caafimaadkii baa jooga all maxaa la yidhahdaa social structure of service deliveries baa wada jooga marka kuwaa runtii dadkeenu kamaba warhayaan marka waa inay dadkeenu ka qayb galaan waayo they have a right waxa buildingkooda ka socda ambaba deegaankooda ka socda inay ka qayb galaan ay go'aanada ay iyaguna odhaahdooda ka dhiibtaan waayo aan waxaan xusuusanay meeshanaan deganayn dhowr iyo 20 sanado degan markii ugu horreysay waan arki jiray meesha laakiin maan aqoon waxa laga qabto dadka marka la sheekaystayna waa tenant resident association markaasaan ka qayb galay markaasaan ogaaday waxa runtii ay dowladda hoose tahay waxa baahida areadayda aan ogaaday marka dadkeenu runtii aad bay ugu baahan yihiin hadday xagga caruurta tahay hadday xagga just the need of their house hadduu daam yahay gurigu hadduu tuismoli dad badan oo meesha waxa jooga ka caawin karaa iyaguna education marka waa run ibrahim counselor ibrahim waan u baahannahay awareness badan oo inayna gelino awareness iminkana runtii dacaadna hayga ahaatee waxaaba la galaa social media but the education inoo noqotay is not good enough for our community marka good enough maaha waa inay la soconaa waxa dhibaatooyinka caruurteena ku keenaya ayn goor walba ogaano tan kale ee iminka soo biirtay amba maandooriska xagga dumarka amba mental healthka runtii waxyaabo badan baa jira oo ayn u baahannahay inayn runtii taabano
oo hadday carruurtu leexato dee ilay markii waddankeennii joogeenba qaar baan leexanayo ilan 100% perfect mayn ahayn marka markaan waddankeennii joognay dee qofku waa la caybsan jiro waa la caayi jiro waa la caybsan jiray marka qofku wuu kasoo yar laaban jiray laakiin iminka qofkii wuu ku tegaya marka waa inaad taa familigii uu ka hadlaa oo communitygii ka hadashaa oo ilmuhu markuu leexdo dee geedkaba waa la toostoosiyaa ilmihii la toostoosiyaa kalgacal iyo wanaag la tusaa oo xumaantii aan loo tuurin waayo markaan xumaantii u tuurno darbijiif buu ilmihii ku dambaynayaa mental healthka dad badan baa qariya oo yidhaaha ilmihii xanuunsanaya waxba ma hayaan taana ilmihii wuu kasii daraa taana waa inaan mental health wuxuu la mid yahay xanuun jidhkaaga uu ku dhacay oo kale kama duwana waa amar ilaahay kugu keenay weeye marka inaan dadkii la odhanin qofkaasi waxaasuu qabaa on farta lagu fiiqin waxaan kale iminka shiishada iyo waxaan dumarka kusoo biirayna runtii xad buu u badan yahay londonta aad buu ugu badan yahay taa lafteeda waxaana dhibaatooyinka ma wixii dee ku tegey mise waxa jiilka prevention bay u baahan tahay preventionna waxa weeyaan dhalinyarada weliba jaamacadaha tagta ka baxday isolation badan ku jira marka mid baa ku encourage garaynaysa another one and that's how it starts marka xitaa laftooda dhalinyaradeenna jaamacadaha ka baxaya kuwa ku jira iyo kuwa doonaya inay galaan kuwa laftooda waxay u baahan yihiin social structure gaara oo laga caawiyo oo identitygoodii iyo diintoodii iyo meeshii ka yimaadeenoo aan ahayn war qabiilkaasaa tahay because kaasi markaasay dhibaato timaadaa laakiin qofka dee haddii identitygiisii la baro traditionkiisii la baro culturekiisii la baro proud buu noqonayaa qofkii laakiin imika sidaa I think malaa Ibrahim baa sheegay dadka ku quflanuun waddankii baa lagu noqonayaa jinsigii wuu joogaa laakiin qalbigii maafi ma joogo taas in laga baxo oo la yidhaaho okay waddan baad ka timi be proud know your history because qof markuu garanayo taariikhdiisi iyo historygiisii meeshuu ka yimi qofkaasi wuxuu helayaa inuu ka proud ahaado qofka kale aad iyo aad baad mahadsantahay waa run waa dhexdaasaan akhri cilmi baaris weliba cilwaankeedu wuxuu ahaa torn between two countries yani qof ku kala dhantalmay laba waddan dhexdooda weliba soomaalida UK uu ka hadlayay runtiina uu calaamadaha qaar uu sheegay in dabeecadaha dadka labada waddan ku kala foganay sidaa uu sii sheegay qolofteenina ay halkii joogto qalbigiina uu waddankii joogo runtii ay caafimaadka maskaxda wax badan midoodo badan runtii ay caafimaadkoodii maskaxda ay dhaawac u keentay sidoo kale sidaa uu sheegtay waa run xiriir baa ka dhaxeeya gacanka hadalka violence iyo markay noqoto ka ganacsiga daroogooyinka iyo gaar ahaan caafimaadka maskaxda iyo khamriga laftigiisa siciid maxaad xal ah ama soo jeedina ood uga tegi lahayd caawa bulshada soomaalida ee inaad dhegeysanaysa ama dhegeysan doonta markay noqoto arrimahan waxaad tidhi inaynu bulshadii ka qayb qaadano inaynu dadkii wax la qabsano inaynu fahanno sida uu systemku u shaqeeyo waxaasu dhan waa dhan haddaba inagoo eegayna xalkii dhalinyarada weliba arrimahan iminka aynu kasoo hadalnay dark webka technology iyo online loo bedelay iyagoo ay isticmaalayeen waxyaala kala duwan iyo gaar ahaanba social media sideeba haddii aan ku idhahdo 3 arrimood muhiimadda sii priority oo bulshadu wax ka qaban karto maadaama caqabadahan hor yaalla ay balaaran maxaad odhan lahayd walow ta ugu horeysa aan odhan lahaa waxa weeyaan qofku halku degan yahay xaafadu degan yahay inuu barto marka hore cidda dawladda hoose uga shaqaysa youth service-ka cidda ah cidda sportska carruurta barta inuu marka hore xididada uu barto oo uu barto maaha iska barasho uu barto siduu carruurtiisa ugu xili lahaa service-yadaas talabaad waxa weeyaan sidii qofkani uu baran lahaa sida marka dhib aad aragtid oo aad u report garayn kari lahayd
oo aanad cidna ula sugi lahayn oo adigu aad isxilqaantid oo waayo taa waxaan u leeyahay tusaalaan idin tusayaa haddii 10 police ay ka shaqeeyaan 10 xaafadood ay u kala shaqeeyaan 10 police officer hadday 10 xaafadood u kala shaqeeyaan xaafadda ugu telefoonada badan ayay tegayaan laga yaabay xaafadda ugu telefoonada yar baa ugu dhib badan oo waa xaafadahaynu inteena badan aynu degannahay qof dadkan biliisku waa shaqaale halka lagu yidhaahdo halkaasaa telefoono badan inogaga yimaadeen ayuunbaa lacagtii la gelinaya ayuunbaa la tegayaa markaan leeyahay wax qaybsigu ta xaafadaada markaad wax report garaysid waxbaad usoo jiidaysaa service baad usoo jiidaysaa waxbaad usoo jiidaysaa marka wax soo jiidkaas waxa weeyaan in xaafadaada si gaara markaa loo arkay waxaa la arkayaa waalidiin soo jeeda waalidiin wax qabsanaya waalidiin leh ilmahayga shalay halkaa qof baa la hadlay ta kale ha ku seexano ha ku soo toosin haddaad wax iska dhaaftid oad carruurtaada gacanta haysatid inaan carruurtaada berri ay kuwaad dhaafaysa aanay jiidan karaynin oo ay inteena badan waynu ka hadalna waxaanana ina hebel baa halkaa taagnaa ama heblaayeynan kadib halkaa taagnaa dhibka ugu weyni waxa weeyaan hadalkaa telefoonka ku wareegaya waxaa ka habboon in loo baadi doono solution ay suuqiyo hadeerto way ka dhawaajiso waxaa jira community leaders anigu shakhsi ahaan waxyaabaha dhibka weyn inoo keenay waxa weeyaan inaynu u dhegal nugul ahaano community leaders qura waayo laga yaabay community leaderskan intooda badan inaanay skillkii ay bulshada isku xili lahaayeen aanay haynin ee ay ku yimaadeen un just by default inay dee ama qofkii uu masaajid ka noqdo mu'adin ama uu organization yar iska samaysto oo uu 30 sano hor fadhiyo dhibka ugu waaweynina mar kastaba oo weliba inagoo qura haysta dadka ajaanibka ah oo sometimes noqonaya wax politically loo sameeyey oo si qof uu leeyahay qofkaas cabdi ubayn ama ruqiyo ama saciid baynu weydiinanaa ra'yiga maya bulshada waa in la weydiiyaa marka la doonayo ra'yi dadka la soo doortay waa gacanka barkada gacan baa biyaha geeya anagu gacankii baanu dadka idin geynayay marka dadku waa inay fahmaan marka hore sidii ay isula shaqayn lahaayeen carruurtana sportska iyo masaajidadooda iyo diintooda laakiin sportsku carruurta wuxuu baraa carruurihii kale xaafadda la deganaa ayay isku xidhaysaa haddii laysku ilaaliyo carruurtaas oo laysku ilaaliyo haddaad tidhahda ilmahayga gaar baan u ilaashanayaa ilmo gaar loo ilaaliya ma jiro soomaalida waxaa ku mahmaadaa dad kaa badan iyo biyo kaa badan bay ku hafiyaan halkantaasaa kaga baxay aad baad mahadsantahay waa dhab badweyn baynu dabaaranaynaa qodobada aad sheegtayna runtii waa qodobo aad iyo aad u muhiima raaqiya afartaa qodob ee uu sheegay maxaad ku dari lahayd muhiimadda aad odhan lahayd dadku muhiimadda xasaana I think waxa horta masha Allah councilor Saciid si fiican buu hadlay waa runtiisa mujtamac bayn ka balaaran bayn ka mid nahay waa in mujtamaca integration keedii sameynaa maaha assimilation inayn ka mid noqono ku milano laakiin waa inayn dad ka tirsan ahaadaan marka taasi horta runtii waa muhiimad importanta waalidiinta Soomaaliyeedna imika dee waaba dad badankooda waa dad da'yar waa inay aad ugu xidhnaadaan deegaankii oo deegaanku maaha dowladda hoose oo qura ee jaarkoodii oo waxa jaarkooda ka socda ay ogaadaan markay og yihiin waxa jaarka ka socda waxay gelayaan markaa siday u badbaadin lahaayeen amba ilmahooda amba ilmaha jaarka marka labadaba waa loo baahan yahay waxa kale oo jira imika dhalinyaradeennu runtii aad bay wax u barataa oo waxa laga hadlaa uun carruurtan leexatay laakiin marka qiyaas ahaan la arko carruurta Soomaaliyeed halkay maanta tacliinta ka marayso ambaba la arko aabbayaasha doorkay ka qaataan ee carruurtooda ka wadaan inta badan dadku way iska indha tiraan oo waxay yidhahaan hooyada unbaa wax wada anigu taa waan ka soo horjeedaa aabbayaal badan oo Soomaaliyeed ayaa ilmahoodii runtii waxbara iskuulkii geeya ka soo celiya
parent eveningkii taga taas horta xaqiiq weyn xaqirnaa haddaan anaku anba dumarnahay amba dadka caddaanka in la deganahay dadka caddaanka in la deganahayna runtii waan ku yar dheeraanaya halkan waayo waa muhiimad aad ii taabata goor walba oo dood kaga jira councilka ragga madow gaar baa loo runtii taagid gareeya kuwa madoobe muslimka ana waa kasii daranto waaba kuweena soomaalida markaan anigu iskuullada in badan baan ka shaqayn jiray maan arki jirin berigii hore aaba soomaaliyeed laakiin imika iyo muddo dhexdaasaba aad bay ambaba tuition sarantarada u geeyaan inamadooda iyo hablahoodaba oo tacliintana la dadaalaan waana runtii mid loo baahan yahay in laga sii kordhiyana lasii dadaalana ay tahay jaarkiina aad loogu xidhnaado muhiimado kalaa jira caruurta maxaa la yidhaahaa tuitionkii iyo iskuulkii iyo maxaa la yidhaha malcaamadii dakafaar badan bay keenaysaa marka waa ina social structure kale oo formula kale loo sameeya think saciid imika sports buu taabtay waa muhiimad loo baahan yahay sunana imika haddii for example caruurteena waxyaabo badan oon arko aan dadka kula taliyaa jira oo kamida imika booliiska dad baa jira booliiska dadkaas caruurtu markay gasho runtii aad bay ugu dhisantaa maskixiyan iyo maxaa la yidhaha physicallyba because traino badan bay ka qaataan caruurtu waxyaabo badan oo fiican oo naftoodana u fiican social environmentkan ku dhex jirana u fiican baa jira waa inaan caruurteena geynaa meelaha ambaba swimmingka ah hadday meelo u gaara tahay haddii kalena meelahan kale ee hadday caruurtu yaryar tahayna kuwan la yidhaaho scoutska ambaba markay 13 jir gaadhaana waxa loo gudbaa scoutska intay ka tagaan bay u gudbaan maxaa la yidhaahaa booliiska dadka iyo army cadetska iyo trainino badan baa la siiyaa jirkooda iyo maskaxiyanba difaaca qaar baa lagu baraa sida pilotad loo noqdo qaarba waxbaa lagu baraa marka maaha uun inayn 3 waxoo qura u go'no inayn bal horta familigii hooyadii iyo aabihii ay mas-uuliyad innaka haddayn Soomaali nahay innakii baan wada fadhiisanaynin oon odhanaynin responsibilitygan 50-50 bayn leenahay marka waa horta in responsibilityga jiilkan dambe ee waalidkii ay 50-50 intay u qaataan ay aabihiina dhinac ka galaa hooyadiina dhinac ka gasha marka ilmahaasi ma dheelmayo tacliintana ilmaha dhibaato badan baa ka haysata ilmaha Soomaaliyeed u fiirso ilmuhu ka talentedsan yahay amba ka education fiican yahay ayuu iskuulka markuu year 9 gaadho amba year 10 exclusion lagaga sameeyaa waxaasina waxa weeyaan sheeko runtii aad u qoto dheer oo aanan doonin in imika gala laakiin in la gala ay tahay waa ilmahan year 8 iyo year 9 filayay inuu caalamka barhkiisa wax ka qabsado dariiqa loogu eryayaa taa lafteeda waa in laga fiirsadaa howlo badan oo ka dhabagaloon arkay ayaan anigu witness ka ahay oo marka la arka ilmahaa soo kacayo la leexiyo marka taasina waa dhibaato ayna waalidku ka warhayn inay ogaadaan oo inaanay odhanin ilmahaygii baa la eryay mid kalaa jirta oo very very important waalid waliba amba hooye amba aabo waa inuu primary markuu iskuulka gala ilmahaagu governor school governor noqota waa inaad noqotaa primary governor iyo secondary governor halkay wax ku bedeli kartaa waa halkaa ayaan kusoo biirin lahaa السلام عليكم aad baad umahadsan tahay raaqiya adigiis iyo barabti qodob aad muhiima oo dhalinyaradana lagu badbaadin karaa taabteen si kooban u dulmar runtii in waalidiintu ay iskuullada la shaqeeyaan oo iskuullada ay ka mid noqdaan guddida sare school governorska in lala shaqeeyo aan laga harin ardaydeena uga xariifsan runtii waa runtaa dibadda ay soo istaageen gaar ahaan inamada xogta ama dhaytada waxbarashada markaad eegto waxaad arkaysaa carruurta Soomaaliyeed maalinta iskuulka la geeyo isagoo weliba guri ka yimid af Soomaali lagaga hadlayo waxbarashadiisu way fiicnaataa uu ka horeeyaa kalaaska 1 2 3 4 uu ka horeeyo
maalinta uu dugsiga hoose sii dhammaynayo yaa secondary-ga sii gelayo gaar ahaan sanadka 6aad ayaad moodaa inuu tallaabo hoos u qaado gaar ahaan inamadu year 9ka markuu yahay galaaska 9aad ee secondary-gii 2 kalaas uga dhiman tahayna waxaad moodaa kalaaska halkii ugu hoos u taagan yahay marka dambena dib u sii istaagay marka in la isweydiiyo maxaa dhacay maxaa keenay dad aan dhaqankeena awoon baa wax u dhigaya haddii aan dadka la shaqeyn oo laga mid ahaana waxa mashaahayaan runtii waan la qabaa Siciid xaafadda aynu degannahay dadka loo doortay golaha deegaanka dadka loo doortay hadday tahay iyo hadday tahay baarlamaanka waa inay ogaadaan weliba inay kala ogaadaan shaqooyinka ay kala qabtaan waxa aad ugu tegayso iyo wax kale gabadh muddo dheer halkan ka ahayd Keeri Makati oo ayaa maalin waxay nagu tiri waxa kaliya Soomaalidu soo doortay laakiin waxa kaliya ugu yimaadaan waxa weeyaan waa dhibaatada waxay tiri ka haysata home office-ka ayuu gaariga ugu yimaadaan laakiin bay tiri halka kii kale haddii uu basku 1 minute soo raago warqadii soo qoro anna waa inaan la hadlaa idhahdaa warqadkan shaqay tagayaan maxaa dhacay warqad kastoo laga soo diray email kastana waan ka jawaabaa marka waa inaynu fahnaa sida habka uu shaqeeyo runtii haddii kale wax lama qabsan karno ummadii hay-adahan ka shaqeeya sidaa uu sheegay ama haatay adeegyada dhalinyarada bixiya ama adeegyada caafimaadka ama adeegyada deegaanka ee kala duwanba in lala shaqeeyo oo wixii dhibaato lagu wargeliyana waa muhiim adoon cidna ka sugin carruurtaadoo keliya gacantaa qabsan carruurtaadii waayo kalluun qurmiba kalluumo badan qurmiya baa laga gebigeenu waynu isku wada xidhannahay marka welibana iminkana online-kii baa laysaga xidhan social media baa laysaga xidhan haddaad u haysato inuu ilmahaagu dahab yahay ood guriga ku hayso meel kaluu gelaya marka taana waa muhiim hogaamiyaasha bulshada waa arrin soo noqotay inaanu cid gaara u xidhnaan in dhalinyaradii laga qaybgeliyo oo weliba la gaargareeyo mentoring la siiyo waa arrin aad iyo aad wanaagsan carruurta leexatay raaqiya arrin aad muhiim ah halkan ka taabatay runtii carruurta dibadda taagan ee ama jeel gashay ama kusii socda ama draaga iibisa ama dembiye kala galay ayuun baynu isha ku haynaa war shabakadii bay ka dhaceen laakiin sida aad sheegtay kuwa wax bartay jaamacadaha tegey waxaa la yidhahdaa hebel wuu najaxay najaxaadii bal inaynu isla egno ilmihii dhaqankiisii iyo diintiisii haddii ay khalkhal gasho khatarteedii leedahay marka taasina u baahan arrin mataqaanaa dhinacii bulshada laska kaashado oo runtii isha lagu hayo aanay noqon wax laga xishoodo haddaba waxaan kusoo gebagabaynayaa runtii qodobo aad muhiima u ballaaran una baahan in mid walba gooni dhowr saacadood iyo dhowr maalmood loo falanqeeya ayaa taabateen guntii iyo gebagabadii Siciid maxaad kaga tegaysaa adigoo 1 minute kusoo koobay maadaama waqtigaan la dagaalan maxaad caawa bulshada tala kaga tegaysaa dad kusoo gebagabaynaysaa waxaan kala tegayaa inaan marka hore la niyad jabin oo mar kasta niyaddu ay wanaagsanaato marka dhalinyarada tacliinta leh aan ku yara noqdo in yar beri dhaweyto 2 sano iminka laga joogaa dhalinyaro badan baa iskuul dad bulshada ugu badani ay tahay dadka ajaanibka Soomaalida iyo Yementu ay ka mid tahay ayaa galaas dhan baa waxay wada heleen wada A star oo uu dhigayay nin jinsiyadeena ka soo jeeda iskuulka galaaskaas 3 carruura ayaa ka yimi constituency-gayga marka waxyaabahan iminka aan isweydiino oo aniguna aan jeer u ahay dawladda hoose waxa weeyaan ka qaybgalkii shaqooyinka ilmihii heerku doono tacliinta ka gaaro haddii aanu kambaniyada qayb ka helayn ama dawladdii hoose aanu qayb ka helayn taa lafteeduna waxay u baahan tahay in diiradda lagu eego waayo haddaynu nidhaahno midna dabaddu taagan yahay waxba dooni maayo kii wax doonayana waxba heli maayo marka wixii waa in aan dee lagu eegin marka waxyaabahan iminka aad aanu tiimkan iminka aan sameeyey anigu aan jeerka u ahay hoos ahaan loogu eegaya waxa weeyaan dawladda hoose dadka madow ama brownka ka qaybgalkooda shaqooyinka iyo heerkay ka joogaan waayo waxaa jira shaqooyinka marka la eego grades bay kala leeyihiin laga yaabo grade 5 iyo wixii ka yar inaynu u badannahay wixii ka badanna inaynu ugu yarnahay marka su'aalaha badan la isweydiinaya marka taa lafteeda qofku inay hooyadu ama aabuhu uu yiraahdo kambanigaasi xaafadaydu u soo guuray imise qof xaafadaha buu shaqaalaysiiyaa oo waxyaabaha u baahan dagaal ma aha waa codsi
laga yaabay qofkan inaanu kambanigana aanaanu garanaynba in dad badani meesha xaafadda degan yihiin inaan cidiba soo doonanin si wanaagsan oo habaysan in laysu xilqaamo oo warqad yar loo diro oo 2 qof u diraan oo leeda bulshadan baa doonaysa inay kula shirto oo qofkii la soo dhaweeyo ama kambanigii la soo dhaweeyo waayo inaga ma aimkeen waxa dadka inaynu didana maaha dadka weyn la soo dhaweeyaa kambaniyada weyn la soo dhaweeyaa waa in carruurtan la arkaa carruurtan inay carruur wanaagsan tahay oo aan dhib lahayn oo aan oo u baahan un gacan qabad marka in dhinac walba laga eego ayaan kusoo gabagabeynaya aad u mahadsan tahay Siciid xildhibaan Raaqiya maxaad caawa weedha ugu dambaysa kaga tegi lahayd bulshada bismillahi raxmaani raxiim horta weedha ugu dambaysa waxaan kaga tegi lahaa caawa haddii ilaahay nafta inagu simo waxyaabo badan bayn runtii caawa aad u taabano badankooda qaar badan kaga tegi lahaa laakiin muhiimadda u weyni waxa weeyaan sideen markii horeba idhi dhallinyaradeena Soomaaliyeed ee wax baratay waa inuu runtii kor loo qaadaa sida uu Councillor Siciid sheegayna runtii waxa weeyaan wax weyn in degaankii ay ku noolaayeen shaqo laga siiyo shaqooyin badan baa ka socdaa iminka for example aniga degaankayga Islington dad kaloo aan degmada ka tirsanayn baa runtii jooga marka fariin dheeroon u diraya xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhan meel weli ka joogaan baan runtii ka tegayaa agenda walba runtii amba committee meeting ku jir amba full council meeting ku jir amba ku jir maxaa la yidhaahaa reference group meeting waa inaad chairka iyo leaderka constantly weydiisaa hal su'aal oo aniga iminka aan caan Islington kaga ahay waxaana weeyaan maxaa dadka madow u qabataan markan midka madow ka gudbana ajaanibka ka gudbana maxaa Soomaalida u qabataan waayo waxaan idhahaa carruurta Soomaaliyeed amba carruurta ajaanibka ee Islington ku nooli from primary from nursery to secondary university qaar badan baa guryaha iska fadhiya dad kalena waa la shaqaalaysiinayaa yaa right kale marka su'aashaasi waa inay su'aal joogta ah noqotaa waxaan xasuusanahay 2012 markan Islington xildhibaan ka noqday qof from this maxaa la yidhaahaa facility teamka qolooyinka wax walba noo hagaajiya ilaa iyo corporate directorsku wada caddaan bay ahaayeen imika I think waxaa jooga 4 qof oo Soomaaliyeed oo weliba senior ah qaar engineer yihiin qaar maxaa la yihiin accountant yihiin qaarba wax yihiin waxaasina waa laygu aaminsiinayaa marka wayn u baahannahay inay meel walayn joognaba ay samayno mid kalena waan kaga tegi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ambaba UK-ga amba meel walay doonaan ba ha ahaadane ka daawanaya xildhibaan iyo waxaa jira dowladda hoose ah iyo xildhibaan baarlamaanka ah waxay leeyihiin wax la yidhaaho shir weliba xildhibaanka dowladda hoose iyo xildhibaanka baarlamaanku leeyahay waa inay shirarkooda tagaan sirjiryadooda waa inay tagaan su'aal bay u baahan yihiin su'aashay u baahan yihiin waxa weeyaan waxaan wax ii qabo ma aha maxaad ii qabata codkaygii waan ku siiyey codkaagu waa inuu waa fair exchange codkaagu waxaad tegaysaa dukaankaad tegaysaa waxaad kasoo adeeganaysaa for example dhar baad kasoo iibsanaysaa right baad u leedahay 28 days if you are not happy inaad return garayso oo tidhaaha ma doonayo it's not good enough for me right bayn u leenahay marka tan 4 sannadood xildhibaanka dowladda la dooranayo dowladda hoose taana right bayn u leenahay waana lifetime for a child haddaad runta u eegtay ilma dhashay primary wuxuu galay already nurserygiibuu galay markaa receptionkiibuu bilaaba waxa weeyaan life changing wey 4 years for someone marka life changing experience-ka qofku leeyahay waa geed baxayo si fiican qofkii wax ma loogu qabtay waa geed baxayo toosan laakiin haddaad codkaagii dhiibtay
4 sanadood ka bacdina maba ogidba wixii lagu qabtay haddana waa lagu imanayaa albaabka lagu qaraacay afartii kala dhiibaysa noloshaadii sidaasay ku luntay waxa weeyaan xildhibaanada u tag maxaad ay qabtay haddaanad u tegaynin waxaan ku noolahay caalamkan casriga email u dir what have you done for me x and y haddayna ku soo jawaabina social media jirta Twitter directly what have you done for me marka waxa weeyaan xildhibaankii isagiiba isku yaxyaxaya marka waxbuu qabanaya kumana iloobayo oo haddaad su'aal weydiiso xildhibaanadii adduunyadu waxay ugu neceb yihiin amba politiciansku su'aal la weydiiyo ayna xal u haynin waayo maxay qabteen ka baarlamaankana the same thing marka dambe ku yimaado hadduu ku yidhaaha A iyo B iyo C baan kuu qabtay de garbaad u leeyahay inaad qofkii marka aad mar dambe ugu celiso laakiin qofkii baan cod iska siinaya aan waxna ii qabanin de maay anfac marka Soomaaliya amba shaqaha ahaata amba siyaasada ahaata amba community leader ahaato intaba codkaaga ayaana ridaya keenayana marka please la xisaabtan waayo xisaabtu waxa accountability baa loo baahan yahay meesha yaala assalaamu calaykum aad baad mahadsantahay Raaqiya waa dhab haddii aynaan la xisaabtamaynin dadkan aynu dooranay runtii codkeenu waxbaynu uma goynayo 4 sano kadib ama 5 sano albaabka kale nagu soo garaacay haddana codkeena lanaga qaadanaya waana arrintaada waa agabkii aynu ku hirgelin lahayna taa kula xisaabtan ugu yaalaa council meeting-ka ka qayb galtaa website-kaad ka sii eegaysaa waxa la xukuusay ninka waxa laga yaabaa xaafadda haddii dariiqada xaafadda wax laga bedelayo ama taraafiga laga yareynayo haddii dhismo cusub la dhisay xaafadda la laga weydiiyaa laakiin haddii aanad ka qayb qaadanin hadda waxaad arkaysaa un dariiqii hortaadoo la xirayba runtii ama gurigii laga dhigay gebigiisiiba marka waa arrintii u baahan inaynu ku baraarugno aad baan idinku mahadcelinayaa aniguna waxaan sii raacin lahaa oo sii adkayn lahaa arrimaha sheegteen gaar ahaan inaynu barano cidda ina matalaysaa iyo sidaynu la xisaabsan dhalinyarada inaynaan ka baqanin in ay ka qayb galaan barnaamijyada ay Raaqi sheegtay sida police cadet-ka army cadet-ka volunteering-ka la sameeyo runtii dhalinyarada waxay kordhisaa garaadkooda kordhisaa discipline bay bartaa waa dhawid baan qolaan 2 sano ka hor la sameynay cilmi baaris dhinaca bulshada oo weliba qolooyinkan la yiraahdo tech ay caawiyaan tech startups-ka kambaniyada cusub ee technology ka shaqeeya waxaan eegaynay si dadka madow la shaqeeyaan runtii waxyaabihii aan soo jeedinay recommendation-ka way qaateen waxyaalaha igu aan maskaxayda ka bixin in dhowr jeer dadka uga sheego ku celceliyo weliba waxaa ka mid ah nin meesha manager-ka ah baa wuxuu yidhi directors-ka wuxuu yidhi cilmi baaris baa jirta sheegaysa haddii ilmuhu markaa uu primary level ilaa secondary uu ku jiro haddii 3 ama 4 jeer uu booqdo xafiis ka mid ah xafiisyada waaweyn ee magaalada ama counselor ilmahaasi waxa uu noqdaa oo uu qaadaa mid shaqo wanaagsan hela oo xafiisyada weyn ka shaqeeya laakiin imika waxaad moodaa maanta inaynaan xitaa kuweyna shaqeeya inaan carruurtii mararka qaarkood aynaan geynin ba xafiisyadii waaweynaa siday u fahmaan ayna u haystaan xafiisyadan waaweyn iyo shirkadahan waaweyn inaan iyaguba shaqo ku lahayn runtii aad baan idinka mahadcelinayaa talada ay tusaalahaan waxaan aad baan ugu joognaa inaad wax ka qaataan waxaan jeclahay inaan noqon markii koowaad aynu halkaa kaga tagno laakiin waa dood ay u baahan tahay inaynu wadno waxaan isku dayi doonaa bal sida aad sheegtay xildhibaanada Soomaalida ah ee UK bal habeen dhaweed waxay la joogay ilaahay raalli ka noqday xildhibaan Kaltuun Cismaan oo Shafiiq ka soo baxda oo xisbi Green ka tirsan iyo Mahdi Maxamed oo isna Labour-ka oo Manchester ka soo baxda runtii caawana xildhibaan Saciid oo Labour oo Cardiff ee la jooga iyo xildhibaan Raaqiya Ismaaciil oo iyaduna Conservative ka tirsan waxay sheegaysaa inagoo ku jirna xisbiye kala duwan kala taageerina haddana dadkii loo wada shaqeynayo waana jeclahay barnaamijkan ka weyn oo weliba ilaa 5 ama 6 7 xildhibaan isugu yimaadaan oo dooda noocan oo kale waan ku dadaali doonaa aad baan idinka mahadcelinayaa labadiinaba dhammaantiin baa habeen wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh